dhalinyaradeenna rag iyo dumarba isticmaala baraha bulshada xagee ku socdaan, xagee ku dambayn doonaan, xagee ku wajahan yihiin, waa su'aal la isweydiinayo. jawaabteeduna waxa weeye sida nusuusta ku sugan zaman kasta midka ka dambeeya ayaa inta badan ka shar badan. xadiidka Anas ee Bukhari iyo Axmed ay soo saareen sida ku sugan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam la yaati alaykum zaman illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. zaman ama waqti idinku imaan maayo ilaa hadduu idinku yimaado ka dambeeya ka shar badan ilaa aad rabbigiin kala kulantaan. bimacnaa waqtigu ka dambeeya waqtiga dambaa sii daran, ka fitna badan oo ka shar badan. waxay tilmaamaysaa oo arrintaasi xadiiskaasi tilmaamayaa in mar kasta oo qiyaamada loo sii dhowaado adduunkana uu gabagabo ku sii dhowaado inay albaabada sharka iyo fitanku ka badanayaan sidii hore, mar walbana ay soo kordhayaan fitan cusub iyo mawjado cusub oo fitnooyin ah. isla waxaa tilmaamaya xadiis kaloo fara badan aakhiru zamaanka inay fitan badan furmi doonaan, sida xadiidka Abu Hurayra Axmed ibn Xibbaan ay soo saareen nabigeenu yidhi sallallahu alayhi wasallam laa taquumu as-saacatu xataa tadhara al-fitan. qiyaamadu istaagi mayso ama imaan mayso ilaa ay fitnooyinku muuqdaan. duhuurka waxaa la yidhaahdaa inay iyagoo qarsoonaa ay bannaanka u soo baxaan. ويكثر الكذب بينتنا بضته وتتقارب الأسواق سوقيضنا اسكو دوادان ويكثر الهرج دلك إيا إسلينتنا أي بضته إلى وحيالها سيصوبحان قيامة إيمان ميس. بمعنى مركي قيامة سودو دهي وحيالها ساسوم وقندونا والسياد دونا وبضن دونا. والنبي يقول مريا حتى تظهر الفتن إلى أي فتنوينكم موقدان ويبنانك وصوبحان. فتنوين كاسي ووحيالها بني آدم أما نفتيسا أما الشرف كيسا أما الدين تيسا ليبا يوه انت بدنا وحلو استعمالها وحيالها أخلاق ذا الدين تا لباتده قيساني kuwaasa marka muuqan doona sanado sanad ka dambeeyo way soo siyaadi doonaan. waaqica markan hadda fiirino aan hadda nool nahay iyo zamankan aan nool nahay oo aan garab dhigno waqtigii ka horeeyay arintaas way caddahay. maalinba maalinka ka dambaysa ayaa ka sii daran, kana shar badan kana fitno badan. waagii hore caalamka wuxuu ku wada xiriiri jiray waraqo la isu diri jiray. waxaa ka dambeeyay caalamka iyo bini aadamka jooga inuu ku wada xiriiro codka. idaacadaha soo baxay in codka la isgaarsiiyo. codka isgaaraya idaacadaha oo inta badan wararkay tabin jireen, laakiin barnaamijyo barnaamij kalena way lahaayeen. waxaa gacanta ku hayay inta badan dawladaha iyo mujtamacaadka gaalada. waa la baasaystay shar badan iyo balaayo inay furmayso ayay dadka inta waxgaradka rumeeyeen. idaacaddii iyo warkii gudbayay waa laga yimid, maqal iyo muuqaal baa yimid, telefishin baa yimid oo maqal iyo muuqaal ah. waxaa la yidhi wixii hore iqarsu ah. idaacad iyo cod soo gudbay oo la dhagaysto geed hoostii lagu dhaystay baadiye tuulo iqarsuba noqdayba.
telefishinkii sidii looga qaylinayay ayaa waxaa soo baxay wax la yidhaahdo internet. telefishinkii muxuu noqday iqarsuun noqday ilaa waladii bacdahu sharun minhu. telefishinka jihooyin mas-uulaaba lahaayoo la yaqaano oo muxuu ahay la dabageli karo waxa ka yimaada ka baqaya in muxuu ahay lagu dabagalo. internet baa yimid, wixii hore dhan wuu nasakhay. internetkii markuu yimid brograamyo fara badan baa ka dhashay marka oo yacni wax weeyaan laga sameeyey oo bini aadamkii noolaa ee dhulka korkiisa ku noolaa uu wax isku gaadhsiinayo. mabaadidii baa la isku gaadhsiin, caqiidadii baa la isku gaadhsiin, akhlaaqdii baa la isku gaadhsiin, wax kastoo bini aadamku uu leeyahay oo dhan baa la isku dhaafsanaya. internetkii markuu soo baxay markaa shabakadaas wuxuu noqday siyaabaha kala gedisan brograamyada looga sameeyey. facebook baa soo baxay, youtube baa soo baxay, instagramkii baa soo baxay, snapchatkii baa soo baxay, midba midka ka dambeeya ka daran, ilaa markii ugu dambeysay uu soo baxay tiktok oo wixii hore oo dhan been yihi, wixii hore oo dhan ka daran. muxuu kaga daran yahay? wuxuu kaga daran yahay horta dadka uu isagu taargadgaraynayo waa da'yarta. intii waaweyneyd uma badnaa, 13 jir, 18 jir, 20 jir intana u badan. waa bini aadamkii intii maskaxdoodii iyo caqligoodu uusan bislaanin, caatifadoodii iyo shahwadooduna ay qaalib ka ahayn. intaasaa taarget laga dhigtay. waa midda labaadee sannadba koodan gudahood ayuu wixii hore oo dhan, wixii ka horreeyey oo dhan dhaafay. marka la fiiriyo dadka ku taxan taqriiban 3 sano 4 sano gudahood buu wuxuu gaadhay bilyan ka badan inay ku xidhmaan oo da'yartaa u badan. marka waxaa kaleeto iyadana aafadiisa kale ay noqotay maadada lagu faafinayo wax kontaroola ma laha. barnaamijkanna asal ahaantiisa shiina iska leh. shiinana waxa weeyaan waa reer galbeedka marka loo fiiriyo waa mulxid. ilaahayna ma rumaysna, aakharana ma rumaysna. reer galbeedkaaba laga helaa waxoogaa kaniisado iyo kuwa ahlulkitaab iyo laga dhex helaa. laakiin china waa mulxid. ilaahayna ma rumaysna, aakharana ma rumaysna, akhlaaqna ma rumaysna, waxa ma rumaysna, maadaduu rumaysan yahay. marka waxaa soo socda tiktok baa hadda yimid. talo maxaa ka dambayn doona? tugtug miyaa ka dambayn doona? fuusfuus miyaa ka dambayn doona? allahu aclam. caalamkani waa riman yahay, wuxuu dhali doona allahu aclam. laakiin waxaan shaki ku jirin cid kasta oo garasho iyo garaad leh marxalada la maraya waa marxalo ay ka naxdo. waxa soo socdana say wax u socdaan markaad aragto adduun rogmanayoo sii socda oo murug iyo naxdin leh unbaa kuu muuqda. gaar ahaan dadka carruurta dhalay ama dhali doona.